بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. war degdega waxaa mar kale hanjabaad iyo dhaar hawada soo marsiiyay afayeenka ciidamada xuutiyiinta ee Yemen isagoo wacd uu ku maray inay duqeyn doonaan isla markaana duqeymo adag ay la beegsan doonaan caasimadda Hargeysa Soomaaliland isagoona xusay in markaan ay tahay markii ugu dambeysay ay digniin u soo diri doonaan ee Soomaaliland iyagoona ay sheegeen inay duqeymo adag ay ka geysan doonaan gudaha caasimadda Hargeysa Soomaaliland xilli dhawaan la shaaciyay in dawladda Soomaaliya isbahaysi adag ay la sameyn doonto wadamo badan sida Saudi Arabia, Masar iyo si la mid ah Djibouti, Pakistan iyo Turkiga ay iskaashi ciidan ay la sameysan doonto iyadoona lagu salay inay noqon doonaan ciidamada difaaca badda cas waa magaca ay la bixi doonaan ee shantan wada ay ka koobnaan doono. dhinaca kale xuutiyiinta Yemen ayaa la sheegay in iyadoo doonayso inay ku biirto isbahaysigan Soomaaliya ay la mid noqoto isla markaana duqeymo adag ay ka geysato caasimadda Hargeysa Soomaaliland haddii Israa'iil ay la weerarayo. waxaase kale oo wararka soo baxaya sheegayaan in Yemen ay gashay diyaar garowgii ugu dambeeyay kadib markii Israa'iil si rasmi ah u shaacisay inay soo degi doonto ee Berbera halkaasi oo si rasmi ah loo dayactiray ee saldhigeeda loona dhameystiray. waxay kale xusay in waqtigan uu yahay waqtigii rasmiga ah Israa'iil ay soo degi lahayd ee dhulkeeda ee Somaliland oo madaxweynuhu ka yahay Cabdiraxmaan Ciro ayaa saxiixay warqadii ugu dambeysay Israa'iil taas oo ahayd heshiiskii kama dambayska isla markaana ahaa midka ugu muhiimsan imaanshiyaha ciidamada Israa'iiliyiinta ee gudaha dhulka ee Somaliland. tanina waa fariimo kale oo cad oo diraysa in marka hanjabaada ay ku soo beegmantay xilli ay hanjabaad adag ay soo direen xuutiyiinta Yemen isla markaana wacd ay ku mareen in dhulka ay la simi doonaan Somaliland iyo si la mid ahba caasimadda Hargeysa Somaliland. waxay kale xuseen afayeenka hadalku ku sheegay ayaa ah in madaxtooyada Somaliland si gaar ah ay bartilmaameed ay ka dhigan doonaan iyo saldhigyada ugu muhiimsan ciidamada Hargeysa Somaliland iyo saldhig kasto oo dawladda Somaliland ay ku leedahay xuduudaheeda iyo si la mid ah Berbera ayay sheegeen inay tahay halka duqeymaha adag ay la beegsan doonaan. xuutiyiinta Yemen ayaa markii ugu dambeysay fariin kulul hawada u soo marsiiyay madaxweynaha dawladda Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo maamulkiisaba iyagoona u sheegay in tani ay tahay fariintii ugu dambeysay samarkaana Hargeysa iyo Berbera iyo guud ahaan magaalooyinka Somaliland ee meel kasto ay joogaan ciidamada dawladda Somaliland ay la beegsan doonaan duqeymo adag iyagoona ay sheegeen in tani ay salaysaga hari doonaan isla markaana la cafin doonaan ee markaan Somaliland. waxay kale xuseen in mar kale ay diyaar u yihiin inay ka mid noqdaan isbahaysiga ay doonayaan. wararka hoosaadka la helaya ayaa sheegaya in Yemen ay doonayso xuutiyiinteeda inay ku biiraan isbahaysiga cusub ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada difaaca badda cas kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin ilaa iyo 5 wadamood ay ka mid tahay Soomaaliya, Turkiga, Saudi Arabia, Masar, Djibouti iyo Pakistan. kuwan ayaa noqon doona wadamada isla markaana ciidamadooda ay ku midaysanaan doono ciidamada gaarka loo bixin doono ciidamada difaaca badda cas ayaa la sheegay in xuutiyiinta Yemen ay rajeynayso inay ka mid noqoto dhammaan ciidamada iyagoona la sheegay in tanina fursad kale ay siinayso ciidanka xuutiyiinta Yemen inay dagaalo adag ay la galaan Israa'iil. waxay kale xuseen marka ay diyaar u yihiin inay weeraraan caasimadda Hargeysa ee Somaliland iyo si la mid ah Berbera isla markaana ay ku fulin doonaan weerar adag oo ay ku beegsan doonaan saldhig kasta ay leeyihiin ciidamada dawladda Somaliland iyo si la mid ahba saldhig kasta ay leedahay Israa'iil. Berbera dekedeeda ayay sheegeen toos ay u abaari doonaan iyagoo dhinaca kalena ay sheegeen in madaxtooyada Somaliland ay noqon doonto meel laga shalaay doono habka ay u gali doonaan isla markaana wax laga yaqyaqsiyoodo ay noqon doonto. tusaale kala duwan ayay u soo qaateen oo ay ka mid tahay tusaalihii wixii ka dhacay Tel Aviv isla markaana Iran ay ka geysatay iyagoo xuutiyiinta Yemen ay sheegeen in wixii Tel Aviv ka dhacay laga yaqyaqsiyoodo ay noqon doonto wixii Hargeysa ka dhici doono iyagoona ay sheegeen dambas inay ka dhigi doonaan caasimadda Hargeysa Somaliland dawladeedana dhulka ay la simi doonaan. shacabka Hargeysa ayay fariimo kala duwan u direen isla markaana u sheegeen inay isaga qaxaan guud ahaan Hargeysa iyo nawaaxigeeda iyagoona u sheegay inay loo baahan yahay in shacabkan ay u guuraan deegaanada kale ee Somaliland haddii magangeli ay doonayaan inay hoos tagaan dhulkooda Soomaaliyeed amaba Yemen inay u soo guuraan ee shacabka Somaliland haddii ay diidaan iyagoo laftirkooda lagu dari doono amaba aysan eedeyn doonin dhibaatada halkaasi ka dhalatay inaysan eed ku lahayn ee xuutiyiinta Yemen.
gantaalihii ugu dambeeyey ridada dhaadheeraa oo ay soo saareen xuutiyiinta yemen ayay sheegeen inay ku tijaabin doonaan caasimadda Hargeysa Somaliland iyo si la mid ah dekada Berbera. waxay sheegeen in gantaalada ay yihiin noocii ugu dambeeyey xuutiyiinta yemen ay soo saaraan isla markaana loo baahan yahay meel lagu tijaabiyo. waxay sheegeen inay fursad ay u heleen Tel Aviv inay ka dheertahay, laakiin waxay sheegeen in Hargeysa ay u dhowdahay. tanina waxay fursad siinaysaa ay ku sheegeen in gantaalada si fiican loo arko awoodooda, iyagoona ay sheegeen in dhulka ugu habboon lagu tijaabin kara ay tahay imikana ee Somaliland, gaar ahaan Hargeysa iyo Berbera ayay ku sheegeen inay tahay halka munaasibka gantaalada ciidamada xuutiyiinta ay tahay in halkaasi lagu tijaabin karo. gantaalada ridada dhaadheer isla markaana ay ku xiran yihiin gawaarida ciidamada gaashaaman ayaa la aaday dhanka iyo Somaliland, kuwaas oo lagu sheegay saacadaha soo socda in halkaasi laga geysan karo duqeyn ba'an aan loo meeldayin, iyadoo xuutiyiinta yemen ay tani ku sheegeen fariintii ugu dambeysay ay u diraan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, isla markaana loo baahan yahay inuu ka waantoobo dhibaatooyinka imika ku hayo dhulka muslimiinta gaar ahaan Somaliland. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay iyaduna in markii hore ay xuutiyiinta yemen u sheegtay in ay joojiso duqeymaha ay ku sheegayso inay Hargeysa ay u geysato, laakiin markaan fariinta ka timid xuutiyiinta yemen dowladda Soomaaliya wax war oo rasmi ah kama aysan soo saarin ama lama aysan hadlin xuutiyiinta yemen duqeymaha ay la geysan doonaan. tanina waxay u muuqataa in dowladda Soomaaliya ay ku qanacsan tahay duqeymo kasta ee loo geysto caasimadda Hargeysa Somaliland, isla markaana soo dhaweynayso duqeymaha xuutiyiinta yemen ay ku beegsan doonaan ee Hargeysa iyo Berbera, waana meelaha ugu muhiimsan ay tahay saldhigyada. halka saldhigga Yahuuda ciidamadeeda guutadeeda ugu horeysay ciidamo la sheegay inay ka badan yihiin 1000 ilaa 2000 ay kor u dhaafayaan inay noqon doonaan guutadii ugu horeysay ee soo degta ee Berbera, halkaasi oo noqon doono saldhiggii oo dayactirkii la dhameystiray guutadii ugu horeysay oo halkaasi degta ayay noqon doonaan. waa sida ay shaacisay Israa'iil. waxaase la sheegaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya inay ku faraxsan tahay duqeyn kasta ugu yimaada dhinaca iyo xuutiyiinta yemen, iyadoona ay ku sheegtay inay soo dhaweynayso, laakiin ma aysan hadlin. laakiin jawaabta ayay u muuqataa sida khubro caalami ay sheegeen inay soo dhaweynayso duqeymaha halkaasi lagu geysan doono. warar kala duwan ayaa laga helayaa weli xogaha dowladda Soomaaliya si la mid ah sirdoonka Soomaaliya ay helayaan ayay tahay in saldhiggii Berbera gebi ahaanba soo gabagaboobay, Israa'iilna ay halkaasi tagi doonto. dhinaca kalena sirdoonka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Pakistan ay yihiin sirdoonka uga halista badan ee adduunka kaalinta koowaadna ay kaga jiraan ayna ka khatarsiin sirdoonka Mossad ayay ku sheegeen sirdoonka Soomaaliya ay ka saacidi doonaan hakinka habka lagu sameyn doono teknoolajiyada ee gaar ahaan kuwa Somaliland, iyagoona la sheegay in la hakiri doono iyadoo la doonayo in haddii weeraro ay noqoto inay qaadaan dowladda Soomaaliya, Sacuudiga, Masar, Pakistan iyo Turkiga, Djibouti gebi ahaanba la damin doono qadka, isla markaana iyadoo ay saamixi doonto in gebi ahaanba la damiyo hawada ee Somaliland ee nadkeeda. tanina waxay fursad u siinaysaa in duulaan dhameystiran lagu qaado, isla markaana lasoo qabto siyaasiyiinta ugu muhiimsan ee Somaliland ee la doonayo. waxaa kaloo la sheegay in sirdoonka ee Soomaaliya uu soo bandhigay sirdoonada Pakistan, Turkiga, Djibouti iyo si la mid ah Saudi Arabia in suuragal lagu qaado weerar lagu qaado caasimadda Hargeysa ee Somaliland, gaar ahaan madaxtooyada, iyadoo wixii ka dhacay Venezuela ay Soomaaliya u soo bandhigtay sirdoonadan dalalkan, iyadoo ay doonayso in gacanta ku soo dhigto Cabdiraxmaan Ciro. waxaa la sheegaa in sirdoonka Pakistan ay arrinkan ku tilmaamay mid aad u fudud, laakiin dhinaca kalena ay soo jiidan karto indhaha caalamka, iyadoona ay noqon doonto fadeexad culus in haddii sirdoonka Pakistan ay garab ku siiyaan sirdoonka Soomaaliya sidii loo soo qaban lahaa. dhinaca kalena ciidamada gaarka Turkiga ay howlgalka ay sameeyaan. waxaase la sheegay dowladda Soomaaliya in arrinkan dib ay u dhigto, isla markaana laga fikiro habab kale oo loo weerari karo Somaliland iyadoo toos aan loo beegsanayn madaxtooyada ee Somaliland, oo lagu sheegay in fargelin toos ay noqon doonto adduunyada ayna u saamixi doonto Somaliland inay hesho aqoonsiga rasmiga ay raadinayso imika. inkastoo caalamka ay aqoonsiga ay ku xireen in dowladda magaceeda ay bedesho, gaar ahaan in magaceeda ay u bedesho Macrobia, waa magaca iyadoo lagu sheegay isla markaana ay doonayaan inay ku bedeshaan magaca Macrobia Somaliland. tanina inkastoo Macrobia uu yahay magaca Soomaaliya, haddana waxaase mar kale dowladda Soomaaliya ay wajahaysaa caqabad culus. adduunyada kama ayaa la sheegay in markaan iyaduna aysan soo dhaweyn doonin even haddii ay baxsato magaca Macrobia. waxaase la sheegaa in magacaasi laftirkiisu uu yahay magacii Soomaaliya asalka meesha ka yimaadeen dadka Soomaalida ay ahaayeen kuwa Macrobiana, magaca Soomaaliyana uu gadaal uu ku baxay.
waxaase la sheegaa in dowladda Somaliland ay wajahayso caqabado culus oo ugu imaanaya wadamada Yurubiyaanka iyadoo dhinaca kalena sida hore idinku sheegaba lagu xujeeyay inay iska tuurto calanka tawxiidka ku qoran si ay u noqoto wadan madax banaan dhinaca kalena la sheegay in tawxiidka meesha ay ka saarto magaca gabiyahanna ay bedesho tanina waxaa la sheegay in qaar kamid ah culimada iyo siyaasiyiinta Soomaaliland oo markii hore doonayay aqoonsiga ay ka soo horjeeseen inay bedeshaan magacooda iyo calankooda iyagoona ay sheegeen in tawxiidka ay tahay waxa kaliya lagu garanayo in dadkan ay yihiin dad muslimiin ah isla markaana ay sheegeen in tawxiidka shalay iyo maanta aysan saarin laakiin qof aad iyo aad qiimo ugu lahaa Soomaaliland uu soo saaray calanka tawxiidka iyagoona sheegay in dadkaasi ay yihiin dad ka kooban culmaadiin siyaasiyiin ciidamo kala duwan iyo silamada bulsho kala duwan oo aqoon-yahana dhammaantoodna ay yihiin dad muslimiin ah waxay ku sheegeen inay gabiyahanba aysan aqbali doonin calanka in tawxiidka meesha laga saaro laakiin wadamo ka mid ah Ingiriiska ayaa u sheegay in calanka meesha ay ka tuuraan shahaadada la ilaaha illa allah isla markaana hadii ay u baahayeen aqoonsi rasmi inay ka helaan dalalka iyadoo Ingiriiska dhinaca kalena qaramada midoobay ku cadeynayo mowqifkiisa isagoo uusan taageeraynin Soomaaliya oo kala qaybsan laakiin oo taageerayo Soomaali oo mid ah dhinaca kalena siyaasiyiinta Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa taageeraya iyaguna in Soomaaliland ay noqoto wadan madax banaan isla markaana u jeedinaya in la aqoonsado iyagoo ay sheegay in markii hore ay iska bedesho magacaasi iyo si la mid ahba la ilaaha illa allah calankeedana ay ka tirtirto gabiyahanba si adduunka loogu soo daabulo aqoonsi imanka waxay ku sheegeen wadan kasta hadii uu aqoonsan lahaa wadamada Yurubiyaanka maadaama ay yihiin kuwa Kirishtaan ah aysan aqbali doonin maadaama wali calankii shahaadada inay calanka ay ku qoran tahay tanina waxay horsaagi doontaa aqoonsiga waa sida loo sheegay Cabdiraxmaan Ciro iyo si la mid ahba dadka ugu waaweyn ee Soomaaliland hadii ay doonayaan in aqoonsi rasmi ay ka helaan dowladaha caalamka waxa loo sheegay in meesha ay ka saaraan tawxiidka isla markaana ay tahay wadada kaliya ay ku heli karaan aqoonsiga iyo magaca si la mid ahba inay Soomaaliland ay ka bedeshaan isla markaana ay ka fikiraan magac cusub oo Soomaali oo idil aysan raad ku lahayn magacaasi isla markaana uu noqon doono magac iyaga u gaar ah markii ugu horeysay oo taariikhda calankoodina inay bedelaan tani waxay saamaxaysaa inay helaan aqoonsiga waa sida loo soo bandhigay Cabdiraxmaan Ciro iyo dowladdiisa dowlado badan ayaa si hoose uga shaqeynaya dowladda Soomaaliland isla markaana doonaya inay aqoonsi ay siiyaan laakiin cabsi iyo baqdin ay ka qabaan dowladaha ay kamid tahay Turkiga China iyo Russia ayaa garab taagan fiituuga kuwii ugu baawar sareeyay caalamka ayaa diidan in la kala jiro Soomaaliya halka Mareykanka iyo Ingiriiska ay kamid yihiin laakiin wadamada ugu badan ay kamid ayaa sidoo kale kamid ah China oo Taiwan iyadoo ay ka maqan tahay ayaa diidan in gabiyahanba la kala jiro Soomaaliland Soomaaliya isla markaana ay doonayso in Soomaaliland ay kamid ahaato Soomaaliya maadaama Soomaaliland ay xiriir dhow ay la leedahay Taiwan dhinaca kalena siyaasiyiin oo ka soo jeeda aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa soo jeediyay in gabiyahanba Soomaaliland lagu daro liiska wadamada lagu xadgudbo ay qaab adag ay la kulmi doonaan sida Taiwan ay ugu jirto shuruucda iyo boga Mareykanka bogiisa waxa ku yaalo isla markaana sharci gaar ah oo Taiwan wadanka ku xadgudba wadamada ku xadgudba oo kaliya ayaa qaban doona Soomaaliya ayaa ku xadgudubtay isla markaana Taiwan ay ku sheegtay inay baasaboorkeeda aqbali dooneen in gudaha Soomaaliya uu ka shaqeeyo laakiin markii dambe qaab adag ayay kala kulantay dowladda Mareykanka iyadoo hanjabaad culus loo soo diray dowladda oo imika hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana loo sheegay inuu san meesha ka saari karin gabiyahanba baasaboorka Taiwan markii dambe ay xiriirka ay u soo celisay Taiwan isla markaana laga aqbalay baasaboorkeeda inay ku timaado dhulka Soomaaliya daawadayaal wararkaasi iyo wararka kale ugu muhiimsan ee ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland iyo dagaalada ka jira gobolada dalka gaar ahaan Soomaaliland iyo si la mid ah xuduudaheeda iyo arrimihii wararka ugu muhiimsan ee khuseeya ee dalka Soomaaliland ayaa halkan ayaad kala soconaysaan mahadsanidin